midaan diin garanayn oo aan dadnimo garanayn oo aan bani aadam garanayn oo aan aqoon garanayn war tahriibka wax ka qabta oo shaqadiina garta war arrintaa wax laga qabto war ilaahay ha laga yaabo haddii kale inqiraad bay nagu dhacay khudbadda maanta maxaan uga jeedaa ee aanu sameeyey baarlamaankii aynu doorannay waxa uu baaskareeyey in madaxweynaha la siiyo $12,000 madaxweyne ku-xigeenkana la siiyo $7,000 iyaguna hadday soo noqon waayaan sanad lacagtii la siiyo $12,000 Somaliland oo 4 milyan oo boqolkiiba 90 ay soo ooteen oo maanta guriga aad tagtaba laga ooyayo inan saxraaga lagu haysto subxaanallah oo midaan diin garanayn oo aan dadnimo garanayn oo aan bani aadam garanayn oo aan aqoon garanayn oo xayawaanka ka liita hablaheennii iyo carruurteennii saxraagaasi waxay doonaan ay ka yeelayeen oo guri wal oo maanta Somalilandna laga ooyayo oo hooyo ay bac la wareegayso oo ragga hawshaa wadaa ay imika 200 mitir inoo jiraan oo markii aanu ka daba tagnay ee qaarkood aanu doonay inaanu qabanno aanu ogaanay inay shabakaadka ay ku jiraan dawladdu daraf ka tahay oo inankii aanu u dirnay lacagta aanu bixinay ee gaariga aanu ingeergaraynay ee wajaala aanu u dirnay ay yidhahdeen waran ku absaamin miskiin baatay waanu kaa dubaalad daarnay kii aad wadatee aad lahayd waxbuu ka qabanayaa baa noo soo sheegay inaad dibreshin kaa wadee inta weliba caayo indhaha ma garatay oo ceedeeyey iyadoo oohintii maanta hooyooyinkii agoonta tamaandhada iibinayay ay hor taagan tahay ayaa kuwii aynu doorannay ee ummadda inay u fikiraan ahayd kuwii ee habeen iyo maalin loo taagnaa kuwii aynu doorannay go'aankoodii waxa uu noqday $12,000 ha la siiyo $7,000 madaxweyne ku-xigeenka ha la siiyo subxaanallah iyo anigu haddaan soo noqon waayo sanad lacagtii laakiin halgasarnaa naxnu yaanu la hadlaynaa ayna nubahaa dadkii ummadda lahaa ee dareenka lahaa ee karaamada lahaa ee wax tilmaamayay mee hablaheennii carruurteennii baa gidaarka lagu kala iibsanaya xukuumaddiina weynaysaa madaxweynaha $12,000 may u qornaa ani yar kuu tilmaamo madaxweynayaasha dunida jiray iyo waxay qaataan Indonesia 150 milyan muslimiin hor fadhiya waa dalka ugu badan wadamada muslimiinta bishii $900 buu qaatay ninkii Argentine hogaaminayay ee Carlos loo odhan jiray $2,200 buu qaataa bishii Latin America marka laga tago maanta Brazil dalka labaad ee Latin America ugu weyn oo Argentine $2,200 buu qaataa bishii Russia dunida maanta Mareykanka waynu ognahay wadanka kaliya soo labeeya ee hantiduu leeyahay aad ogtahay ee nuclearka uu haysto 500 oo madaxii kaliya toddobada qaaradood la sheego hours uu ku ololinayo isagoo haysta wuxuu qaataa $9,583 ninka dunida oo dhan haystay Netanyahu leeyda Israel oo 13 milyan Israel maanta maxay tahay dunida oo dhan nimanka xukuma madaxweynahoodu wuxuu qaataa $4,200 subxaanallah
ciidda cunaysana kuwii aynu mas-uuliyadda u dirnay war tahriibka go'aan ka soo saara laga la'yahay shirkadda iibisa halkanay ku leedahay xafiis wajaalay ku leeyihiin adisababay ku leeyihiin waa hebel hebel waa la wada garanaya hablaha iibinaya ee guryaha ku haya halkaynu ka sugaynay kuwa inay sharci ka soo saaraan anigana sanad lacagtii hallay siiyo madaxweynahana 12,000 intan ciidda cunaysa wuxuuda yaraynu qaybsannay subxaanallah dunida oo dhan ninka hor fadhiya madaxweynaha China 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo bini'aadmiya ninka xukuma ibsu qatabat islam subxaanallah Somaliland gibigeeda waa hodheel kaliya uu sameyn lahaa 4 milyan kale ku wareernayba hadal gibigooda waa hodheel ha yimaadaan inoo odhan lahaa way hodheel kaliya ka shaqeeyeen 3,260 buu qaata 3,260 dollar buu qaata Vietnam oo ogtiin waa dalkii Mareykanka laga dagaalamay 5,500 markii dayuuradood soo rideen baa Mareykanku yidhi hala joojiyo dagaalka kii Mareykanka jabiyey madaxweynahoodu inuu soo qaata 1,650 dollar buu qaataa bishii subxaanallah war shaqa idin taalay dhulana kuwa meesha fadhiya war tahriibka wax ka qabta oo shaqadiina garta war arrintaa wax laga qabto war ilaahay laga yaabo war kuwa talada haya ummadda ilaahay kaga yaabaan war waxa aynu qabanayna ha loo fiirsado war tahriibka la joojiyo war culimadu ha ka dagaalamaan war ha loo sheego xukuumaddaasi daraf bay ka tahay in la joojiyo war hargeysa caruurtii lagu kala iibinaya war baabuurtii kareynaysa baa la garanaya war kuwii tahriibinaya baa la garanaya war kuwii kala qaadanaya baa la garanaya war sharci degdega xukuumaddu ka soo saar haddii kale inqiraad bay nagu dhacay